Kusoo dhawaada cashar kale oo ka mid ah casharadii aan ku baranaynay Microsoft Excel. Casharkani waa cashar aad iyo aad u gaaban. Waxaanu ku baran doonaa qaabka grams iyo kilogram la isugu bedelo. Tusaalahan waxaa haysataa gram, waxaad doonaysaa inaad u beddesho kilogram. Sidoo kale waxaa haysataa dhinacan oo kaleeto waxaan ku haysanaa kilogram. Kilogramkan baan waxaan rabnaa inaan u beddelo grams. Marka caadi ahaan waan naqaanaa sida la isugu beddelo, laakiin bal Excelka gudihiisa marka aan joogno, haddii lagu weydiiyo kilogram waxaa u beddeshaa gram ama gram waxaa u beddeshaa kilogram adigoo isticmaalaya Microsoft Excel, qaabka ugu fudud aad u gelin karto ama aad ugu beddeli karto ayaynu baranaynaa. Marka hadda qaybtan koowaad oo kale waxaan ku haysanaa grams, waxaynu u beddeli doonaa kilogram. Haddaan iyada ku bilowno, waxaan taabanaynaa equal, kadib waxaynu qoraynaa convert. Convert markaan qorro, waxaan dooranaynaa cellka koowaad xogta ku jirta. Kadib waxaan taabanaynaa hakad. Kadib waxaan taabanaynaa apostrophe. Kadib halka waxaan gelinaynaa gram. Kadib waxaan taabanaynaa mar kale apostrophe. Kadib waxaan taabanaynaa hakad. Kadib mar kale waxaan taabanaynaa apostrophe. Waxaan gelinaynaa halkan kilogram oo loo soo gaabshay kg. Kadib waxaan xiraynaa apostrofekaas furan. Waxaan ku dhufanaynaa enter. Sida waxaa noogu soo baxay 1500 oo gram inta ay kilogram la mid tahay. Si aan u helo xogta kale oo hartay, waxaynu ku dhufanaynaa meeshan geeska ah. Ayaynu 2 jeer dhag siinaynaa. Sidaas waxaan ku helaynaa xogta oo dhammaystiran. Marka tusaale ahaan halkan haddii aan beddelno oo 500 gram oo la midka 1 kilogram haddaan wax ka beddelno, dhanka kalena ama dhinaca kalena wuu isbedelaya. Tusaale ahaan halkan waxaan ka dhigaynaa waxaa noogu yaala 5,000 gram ayaa noo yaala. 1,000 gram wuxuu la mid yahay 1 kilogram. 1,000 gram baa waxaan ka dhigaynaa 500 gram. Marka waa inay noo soo baxdaa 0.5 gram, 0.5 kilogram. Halkana marka waxaan ku beddelaynaa 500 gram. Automatical dhinaca kale waxay noo noqonaysaa 0.5 gram. Marka qaabkani waa qaabka loo soo saaro kilogramka adigoo ka imanaya grams. Sidoo kale kilogram haddaan haysano, waxaan u beddeli karaa grams inoo Excelka isticmaalayna. Waa formuladii hore u eg, kaliya wax yar bay kula duwan yihiin. Marka si aan u beddelno, waxaad taabanaysaa equal. Kadib waxaad qoraysaa convert. Kadib waxaad dooranaysaa cell koowaad datada ku jirta. Waxaad leedahay hakad. Kadib waxaad qoraysaa apostrophe. Kadib waxaad qoraysaa kilogram. Kadib waxaad taabanaysaa apostrophe. Kadib waxaad leedahay hakad. Then apostrophe. Gram. Apostrophe. Equal. Sidaa waxaynu ka helay 0.35 kilogram inta uu grams la mid yahay. Wuxuu la mid yahay 350 gram. 0.35 gram kilogram wuxuu la mid yahay 350 gram ayuu la mid yahay. Markaa si aan kuwa hoos u helona, halkan ayaynu ku dhufanaynaa geeska ah 2 jeer dhag. Sidaa waxaan ku helay kilogramskani inta gram oo u dhigmo. Tusaale ahaan marka haddaan halka wax ka beddelno oo aan niraahno matalan halka haddaan wax ka beddelno oo niraahno 2 kilogram haddaan ka dhigno, hadda waxaan ognahay 1 kilogram inuu la mid yahay 1,000 gram. 2 kilogram imsa gram ayay noola mid noqonaysaa. Dabcan waa 2 kilogram. Si aan u helo ama u tijaabino, waxaan ku dhufanaynaa ama aynu beddelaynaa meeshan ay ku qoran tahay halka. Waxaan ka dhigaynaa tusaale ahaan 2. Automatically meesha ku beegan 2,000 bay isu beddelaysaa. Isu beddeshay. Casharkeenu intaas ku kooban yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.